بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي ذا كحرم برتي ذا يوتيوب ولكن أبوك عوالي سولو هذا مركلة إيو برنامج يدي عن سكوغين إن هلكن كسو دايو عاوا شكذا وحلي رادا أنيقا أبهي عاوي كذا البا كفاهم دونتان لكن شكذا أنا وحي قصيصا aabbayaasha qurba joogta ah haddii aad tahay aabbo qurba jooga waxaan kaa codsanayaa in yaroo timekaaga inaad isiisid adoo u danaynaya carruurtaada waxaan kula mid ahay aabbo qurba joogaan kula mid ahay waxaana kula wadaagi doonaa experiencigayga iyo inta aan talo ahaan halkaan isleeyahay walaalkaan la wadaago aabbanimada waxa ii dheer waxaan ahay qof ka soo shaqeeyey carruurta la soo shaqeeyey 5 years of primary school iyo 5 years of secondary school weliba xilligii secondary schoolka waxaan kaloo la shaqeynayay carruurta youth offenders team la yiraahdo dhalinyarada dembiyada gasha waxaa la ii tababaray child psychology carruurtu sida ay wax u bartaan child protection behaviorkooda habdhaqankooda runtii experience fiican baan halkaas ka leeyahay waxaan kaloo ahay aabe 6 carruur ah ahaan jiray aabba dibooda oo aan carruurtiisa wax badan ka warqabin oo qaadka cuna haddana alxamdulilah sida ay carruurtayda iyo xaaskaygu ii sheegeen waxaan ahay aabba fiican halkaas anoo ka duulaya ayaan aabbaha qurba jooggow waxaan ku leeyahay walaal la soo dhawow waxaynu ka nimid waddan waxaynu u noolayn hab aabbayaasheen u noolayn awowayaasheen u noolaayeen walaalow haddaba haddii aad u nooshahay ama aad rabtid inaad u noolaatid sidii aabbahaa u noolaan jiray life stylekiisii qurbahana aad degan tahay walaalow labadaas isma qabanayaan أنا كفهم سيني وحين كسو كورني ودن كيني دين تيني لغديني بيئد حينداب دبولن وقطرها كإيمانا يبنانك يريهين المها الصومالي يكو كراي وحكو لح كرا درس يمعلن دوكسي يو قرابو يأهل يددو ذا يغاوريا إنا هبل الليه ولكي وحي رقلد الوار أبها بنكو شيغي يهو يدا حد سبينيسا قفك ugu horeeya canaanay hay adeer inta dhahno baan idab yeelan jirnay qurbuhu waa ka duwan yahay qurbaha ilmahaaga markuu albaabka ka soo baxo waxaa hortaagan khataro ay ka mid yihiin mid jimsi ahaan u necab mid kalar ahaan u necab mid diin ahaan u necab mid raba inuu daroogo ka gado mid raba inuu daroogo u gado mid raba inuu bastoolad u dhiibo mid raba inuu crime u isticmaalo qatarahaas oo dhan habkii looga badbaadi lahaa baa tala kaa siinaya abbo haddii aad isleedahay carruurtaydan caloosha u buuxinaya truck driver baan ahay bus driver baan ahay uber driver baan ahay waxaan rabaan ka shaqaynayaa 9 to 5 baan maqlaanayaa 5 wixii ka dambeeyana meelahaygaasaan ragga la soo sheekaysanayaa muusimada iyo siyaasadda iyo fadhi ku dirarka iyo ragga inaan is wareysano hallow 10 habeenimo waan iska imaanayaa berina waa routiinkii waa sidii oo kale abbow walaalow waad ila qalilanta tusaalena waxaa kugu filan waa meesha titleka aan u bixiyey ilmahaaga yarkaabaa laga yaabaa habeenkii inuu hadba daaqadda saa u fiiriyo aniga aabahaygayga caawe hooyuu weydiinaya waxaa kaliya uu raadinayo waa aabbo habeen wanaagsan aabbo maalinkaaga see ahay I love you waan ku jecelahay good boy baa tahay gabar fiican baa tahay adigina waxaa laga yaabaa siyaasadda Soomaaliya iyo doorashadii هذا الرجل يحل بلدي يوحي قيمسنا هي هوشاس إلى تكون فوق انتهي أو تكون مغنى عرفت هذه تعقد تساوي تاكي المها وحي كافو فان صبحي
8 hours bay waxay ku maqnaadaan iskuul. maxaa la baraa? waxbarashada waddankani ma aha, anaana ka soo shaqeeyey chemistry iyo juqraafi iyo taariikh iyo ma aha. way of life baa la baraa. hadduu american yahay americanism, the value, qiimaha america la baraa. americanismku wuxuu yahay waxa iyaga la saxdaa, waxa iyaga la quman baa la baraa. manhajkoo dhan baa ku fadhiya. hadduu british yahay british value baa la baraa. hadduu scandinavian yahay waa la mid. maxaad ka ogtahay amuurahaas? hal su-aal baan ku weydiinayahay, iiga jawaab si fiicanna uga fikir. luqaduu raba ha ku hadlo, meeshuu raba waddankuu raba ha ka joogo qurbo. halhayska wiilkaaga, anigu ma aqaan wiilkaaga, laakiin halhayska carruurta qurbaha ku dhalatay kelmadda ugu badan oo ay ku dhawaaqaan waa it's not fair. oo macnaheedu yahay sidaani xaq ma aha. abba it's not fair, ayu barmees halkaasaan ku geenayaa baa tiri, abba muxuu kan saa u sameeyey, it's not fair, it's not fair. xaq ma aha, xaq ma aha, xaq ma aha bay ku celceliyaan. weli ma isweydiisay xaqaan ilmahan yari la ordayo muxuu ku miisaamaa, muxuu ku saleeyaa? maxaa xaqa, maxaa xaq daraa, xagee ka keenay? ma xaq aad adigu bartayba, mise waa xaq kale oo iskuulka iyo manhajka iyo valuega iyo habdhaqanka waddankan laga soo baray? cabaarka fikir. it's not fair haddaad maqashid waxay ka timaadaa habdhaqanka waddankan iyo way of lifeka waddankan bay ku fadhidaa. macnaheeduna waxa weeye aabbaha ha ku xushmeeya, adna xushmee. aabbaha caqliyan ha kuu qanaciyo, laakiin yuusan amar ku siin. aabbaha waxaa samey markuu leeyahy waa inuu kuu sheegaa reason why. aabbaha tuko soo bax masaajka adayna, he has to tell you why. waxaa la baraa ilmahaaga never stop asking why. inquiring minds, maskax wax isweydiisa, maskax furan. si haddii loo fiiriyo waa wax fiican. I'm not saying arrintaa qaldan, laakiin annagu ma u diyaarnahay ilma saas loo tababaray? muxuu u baahan yahay maandhis in la buuxiyo. identity criska waxa keena waa ilmo aan lagu shubin qiyamkii iyo valuegii islaamnimada iyo soomaalinimada iyo waxay tahay. ilmaha aan aabihiis iyo hooyadiis dhexda gashan oo aan saa u gardaadin, oo aysan ka tallaabin boholaha, khataraha, daroogada, knife crimeka, cirbadaha la isqaadanay, kiniiniyadan la cunayo, ilmahaasi wuxuu ku jiraa khatar. ilmaha la hogaamiyo oo geesaha laga galo waxay u badan tahay buundooyinkaas la dhaafayo oo qurbaha inuu ka badbaado. waxaan ammaan iyo bogaadin usoo jeedinayaa hooyooyinka soomaaliyeed. halyeeyo dhahaygan ku arkay, iskuulaadkan ku arkay, whatever the weather, ama baraf ha noqoto ama roob ha da'ahiyo, waa socdaan. 5 carruuro xaggan kan gee, tuushan gee, iskuul gee, u soo noqo, qada u kare, kii kale gee, dhakhtar gee, milkan gee, appointment gee, xagga iyo xagga intaas u dheer tahay. u kare, u dhaq, dharkii u diyaari, ka seexi, kan muxuu cunay, kan dawadiisii, kan fighters. intaas iyaga maxaa usii dheer markay bannaanka u baxaan xijaabkeeda mid dhibsada, mid hoon ku yeeriya, mid karaha, mid carruurtan badan ka xanaaqsan, mid iyadoo dhan diidan. waxaasay ka dhex baxdaa hooyo soomaaliyeed. only you baa samayn karta waxa ay sameeyaan. haddii xaq iyadoo ah aan loo kala helinin la yiraahdo dumarka adduunka ayaa ku tartamaya dulqaad iyo samir iyo sharaf iyo qurux iyo iimaan, wallahi number 1 bay geli lahayd. umana oranayo because ama anaa ka dhashay ama anaa mid ka mida qaba. xaqiiq dumarkii waa eed sheegteen. ragow dumarkii waa eed sheegteen. waad aragteen clubhouse-yada iyo doodaha ka socda. waxaa loo baahan yahay inaad doorkiina qaadataan. 2 masalo baan rabaa labadaasba in si fiican looga fikiro. waxaa batay qurbaha, furiinkii baa batay. ilaahay baa furiinka baneeyey, waa la isfuri karaa. laakiin walaalow
haddaad gabadhan kala tegaysaan haddaad shalay idinka iscalmaday gabdhaha adduunko dhan jooga adaa ka doortay hadday kaa soo go'day oo aad ka tegaysid walaalow ogow carruurta ma aadan furin iyadaad furtay ilmaha isagoo iska u joogo aabbihiis hal mar bicture ka baxo oo arki waaye oo hooyadiina inta xanaaqdo markuu weydiiya ay dhahdo ma aqaan aabbaha iga tag iyadoo xanaaqsan ilmahaasi iskuulaadka indhahaygan ku arka waxaa ku dhaca waxa la yidhahdo withdraw wuxuu ka go'aa activitiyadoo dhan wixii uu jeclaan jiray xiisadaha carruurtu jecel yihiin oo ay ka mid tahay baaskilada break timeka footballka waxa cayaartahay oo dhan wuu ka go'aa gooni buu istaaga casharadii uu ka shaqayn jiray focus ma aha waa maqan yihin waxaa u dheer intaas nightmares iyo inuu isku kaajo iyo inuu cabateed ku xirmo waa ilmo yar oo 5 jira 6 jira iska korayaan ma aha they have a feeling dareen bay leeyihiin wuu isweydiiyaa ilmahaasi aabahaygayga aawe he's asking questions marmar ayuu wuxuu u qaataa oo balaymka isa saaraa inuu asaga yahay talow ma aniga is it my fault is it me abba muxuu u tegi abbayaalow haddaad kala tegaysaan ilmaha kala soo fariisi haddayba dhacayso ilaahay idinkuma keeno reerkaas badbaadiya furinka hala yareeyo qurbaa la joogaa laakiin haddiiba ay dhacdo meeting organize garee shir reerku leeyahy waa arrin weyn oo culayskeeda oo reer ku soo kordhay waxay u qalantaa shir reer carruurta talada ku dar special dinner gurigiinay weliba ku fiicanta meel kale ayaan la aadin caawa shir khataraa jira cashaa jirta hala isu yimaado midka yar iyo midka ugu weyn miiskaa lasoo fariisto adagu marka waa inuu dhahaa aabbayaal aniga iyo hooyo waa idin jecelnahay waalidkiin baan nahay ilaahayna kiin siiyaa mahad iska leh laakiin ilaahay guurka waa baneeyey furinkana waa baneeyey aniga iyo hooyo waa kala tegaynaa laakiin kala tegistayadu jacaylka aan idiin qabno marna ma saamayn doonto in fact dhinac wanaagsanba ka tus kala tagii wax positive ka dhex tuso waxaad dhahdaa in fact meeshii aad hadda hal guri kala haydeen 2 guri baad yeelanaysaa guriga aabe iyo guriga hooyo sometime waxaad aadaysaan guriga aabe sometime waxaad aadaysaan guriga hooyo wax dhiba ma jiraan u macnee u sheeg hagsi wanaag uga tag next day soo wac xiriiri u imow they will adjust way la qabsanayaan way fahmayaan remember waxaan iri carruurtan waxaa loo tababaray inquiring minds asking why haddaad explain garaysid okay really you know sometimes I go guriga hooyo sometimes I go guriga aabo my dad still wuu jecel yahay hooyadeena way jecesha in communitygeenana way ka jiraan ma nihin kuwii ugu horreeyey oo aabbahoodii hooyadood kala tago they will understand laakiin haddaad iska dhaqaaqdid tarar iyo xanuun iyo cuqdad baad ilmaha uga tegaysaa taas meel ha lagu qorto waxaa ii haray isqabqabsiga iyo qaylada iyo farajirjirka iyo sawaxanka arrintaa ha la yareeyo anugu indhaha carruurtan marka la ka eegaya carruurta ku dhex kora aabba dibooda hooyo xaggee saacaddan ka timi nahayorado iga tag hababababa qaylo dagaal arka hooyadood oo oynaysa dhaawac baa qalbiga ka gaara ogow nin soomaaliyow hooyada aad ka oohinaysid gabadhaadii waa ku daawanaysaa you aad ambassadorkii ragga soomaaliyeed u fadhiya gurigaaga habdhaqankaaga sidaad u tariid garaysid sidaad u keer garaysid muxubbada aad tustid kalgacalka aad tustid aabbaheed bay jeclaanaysaa gabadha yarta macnaheedu waxa weeye iyadoona nin kaloo soomaaliyeed bay jeclaanaysaa
ku dirim garanaysa laakiin farajirjir iyo qaylo iyo hooyo ooyeysa iyo hooyo keligeed ku faysa iyo hooyo daalan iyo hooyo stress ah hadday aragto simply waxay ku leedahay I don't want to anigu inaan sidaan u noolaado. That's why maybe caawa ask your gabadhaada haddaad Minneapolis joogtid haddaad London joogtid haddaad Stockholm joogtid gabar teenager hadday kuu joogto oo aad habdhaqanadaas leedahay ask waa xujo weydii gabadhaada ma guursanaysaa dhannin Soomaali. I don't know tan ugu fiican ma ku oranayso I'm not sure because waa habdhaqanka raggeena arrintaas waxa laga bedelo ilmaha qayladaas ku kora waxaana soo xiganayaa Dorothy's Law. Dorothy's Law waa 1900 haddii alla ku idmaayo 54 bay qortay. Children learn what they live. intaas Google gareey. Children learn what they live. carruurtu waxay wax ka bartaan waxa ay ku nool yihiin. haddaad barays garaysid oo aad waqti siisid oo aad gubaabisid waxay noqdaan kuwa dhiiran oo confident isku kalsoon doqon yaho nacsiyo war naga fariisa haddaad dhahdid wuxuu noqdaa shy macallimiintu xataa su'aalo markay weydiiyaan aan farta taagin asagoo og because wuxuu ka baqayaa war naga aamus doqon yaho in la dhaho saamayn bay ku yeelataa leynankiisa cunuga ku kora aabba violent ah iyo guri gacan la isu qaadaya asaguna farajirjir buu bilaabaya iskuulka halkii qof oo ka ra'yi duwanaada cunuga haddaad bartid u mahad celin thank you aad hadid aabba maasha allah halkaasna ka qabo asna wuxuu gartaa inuu asxaan sameeyo cunuga haddaad accept garaysid waa kan iyo waa saan iyo war waa kan iyo waa magacyada aad ka daysid wax uu yahayba nooc uu yahayba haddaad accept garaysid oo aad dhahdid rag adaa ugu fiican gabar adaa ugu fiican maasha allah halkaa ka wad wuxuu noqonayaa qof isku kalsoon oo naftiisa ku kalsoon cunugu hadduu fairness xaq kan kaa weyn baa laha u dhig ma aha no wiilkaana gamekiisuu leeyahay kanna gamekiisuu leeyahay kan yari kan weyn gamekiisa hadduu ka qaata no u dhig waa meesha ay ka dhahaan fair ma aha xaq kan yari hadduu qaldan yahay qabo waa yar yahay wax walba loo daayay ma aha maya baro waxaagaad leedahay ninkaan wixiisa ammaan u sii kan weyn hadduu dabca inuu jajuubana sidoo kale ka joog laakiin marna ha oran kanaa yara u sadbadi xaq ma aadan samayn justice ma aadan samayn aabbayaasha waxaan leeyahay aabbayaalow waxaa soo kordhaya carruurtii weliba wiilashii oo xabsiyada iyo knife crimeka iyo gunshotka iyo cerbado iyo kaniiniyo raggiina waxay halhays ka dhigteen dumarkii waa kibreen gabar Soomaaliyeed baa waxaa laga hayaa ciilka iyo calaacalka ma intaad ibadaad igu caay dumarka Soomaaliyeed annagaa soo qaxinay annagaa qurbo keennay annagaa ku furnay annagaa ku dayacnay ragow qurbo joogay waragow aan isdaba qabanno 5-6 carruur adoo ku joogto oo waddan qurbaad jooga oo ay ku meegaarsan yihiin khatarahaas aan ku sheegay drogo diin kale dambiyo mid kalarkooda neceb mid diintooda neceb mid muuqaalkooda neceb mid tirabadnadooda neceb mid luuqadooda neceb 5taas carruur iyo hooyadood haddaad intaad Minneapolis iyo Mareykan salkiis iyo London iyo Scandinavia iyo Europe ta ku furtay reerkaas halkaas dejisay dad suud inta xiraato dhaad xilbaan Soomaaliya ka qabanaya you are lying below that
your first responsibility-gaaga ugu horreeyey oo ilaahay kugu ammaansaday oo aakhira lagu weydiinaya raaciyadii lagu diray waa carruurtaada not inaad xil soomaaliya ka qabato dalkan wax ka dhisaya waa been soomaalidu waxay dhahdaa tiisa ka adkaada tu kale ku dara carruurtaada markaad meel ka soo saartid that is nation building afar shan carruur oo academic ah oo ilaahay yaqaan oo afkooda yaqaan oo confident ah oo soomaali inay yihiin og intaas haddaad soo saartid markaas wey nation building markaasaa dalka wax tarta waxba tari maysid oday confuse oo asaga laftigiisa stress ku furayo oo qurbaha ka tegay young fresh dhalinyaro ah oo dalka wax ku bartay oo fahamsan caqabadaha iyo challenge-yada ku dhex koray baa jooga don't take the fursadooda ka daa boobka iyo laqdabada they have more skills they have more understanding caqabadaha dalka jira than you waxba inta suud xirtaa oran ahay qurbaanka xil baan rabaa aw xilkii ilaahay kuu dhiibay aw xilkii gabadhii gobashii sharafta lagu siiyey meeda ragow dib isugu noqdo anaa idinka mid ahaan jiray raggaas iska dibooda qaadka iska cuna arsenaal baa ciyaaraysa caawa shir baa jira abababa mooshin baa farmaajo muxuu yiri abababa cabdiraxmaan shukuur baa hadlay xasan sheekh maxamuud baa laaday abababa waa wax aanan waxba ka bedeli karin influence kuma lihid saamayn kuma lihid waxaad ka bedeli karti ma laha waa talk waa cheap intaas waxaa ka affectivesan oo aan kaaga tegayaa caawa one thing iga qaado cunugaaga markuu iskuul ka yimaado bilaahi calaykum isku day asagoo soo jeeda inaad guriga timaado tusa seexan 7-6 weydii aabe maalinkaagii sidee ahaa maxaa kaa farxiyey maxaad jeclaysatay maxaa kaa xanaajiyey what did you learn maxaad baratay tell me one thing saaka markaad baxaysay aada aqoon and now aad taqaanid tell me ana xataa ii sheeg inaan bartaan rabaa he will tell you waa window aad kala socontid carruurkaada dareenkooda caadayso intaas joogtee waana xujo 7 days joogtee intaas habeen walba aabe see tahay kan yaa ku dhibay yaa macallimiinta ka waran macallinkee ugu jeceshahay xiisadee ugu jeceshahay how's your mathska aniga markaan yara juqraafi iyo taariikhda ku fil la sheekayso markaad la sheekaysanaysidna don't come inta kor istaagto roy ka waran ha oran wejiga ugu aad humble u dhig isu gaab u fariiso same level ciyaalka markaad kor taagan tahay oo aasaas waxay dareemaan threatening saa asagoo cirkuufi hee aabbo under attack bay dareemaan don't dominate ha dominate garaynin same level la imo smile humble wadnihiisa daaqad ka furanaysa kaaga warranta who he is hobbigiisa wuxuu jecel yahay wuxuu dhibsado wuxuu yaqaano markaas ninkaas waa istaqaanaan haddaad joogtaysid intaas hadda waa inta ugu yar habeen walba intaas markaa ka wareystay maasha allah dalinkii reerkaa tahay hadda waa ku kaasaa gabadhii dhammaydii reerkaa tahay hana ceebayn hadda waa ku kaasaa dadaal I love you give me a hug habeen wanaagsan that's all you need that's 10 minutes 10 minutes 20 minutes haddaad wada cashayn kartaan intaas waa nin aad wax ku shubatay wiilka abihiis la dardaarmo la sheekaysto aabe waa ku kaasa I love you ku dhaho wiilka daragada gadaya markuu u yimaado oo ku dhaho ay come here let's see how you get me alamiga waxaas marka lagu dhaho no ani aabahaygayga wuxuu dhahaa sameyn xaaraan waaye saasay dhahaan aniga aabahaygayga ay dhahay wiilka abihiis fadhiga dur ku jiro oo siyaasadda ka sheekaynayo oo marfishada ku jiro oo garaabada iyo qaadka iyo qurunka cunayo carruurtiisii daaqaday taagantay waxayna dhahaan habeen walba aniga aabahaygayga caawe I'm asking you where are you tonight xagee joogtaa goormaa kugu dambaysa xaaskaagii carruurtaada aad ku dhahda I love you
habeen wanaagsan hala seexdo habeen barkii baad soo dhacdaa sida tuugii ma raba inaan offensive noqdo inaan idin dhiirogeliyan u soo gala waxaan kaloo hoosta ka xariiqayaa aabbayaal iga sharaf badan culumo ah aqoon-yahanna akhyaara reero qabow reerkooda dhaqda inay jiraan ma rabo inaan ummadda burshooda mariyo laakiin walaala haddaad daawanaysid muuqaalkan iga gaarsii wiilka yarkaa ee aabbihiis raadinaya oo adiga laftigaaga daawanaya ku leh aniga aabbahaygayga caawe qaad muuqaalkan u dir aabbihiis aad baad u mahadsantihiin barnaamij kale oo kanoo kale lamida intaan isaga imaan doona insha allah waxaan kaga tegayaa ilaahay subxaana watacaala hana xafido howlo khatara iyo waqtiyo khatara iyo beycado khataraan ku jirnaa ilaahay subxaana watacaala reeraheenna iyo bulshadeenna ha noo qaboojiyo dalkeenna ha noo qaboojiyo waa aniga oo walaalkiin waa abuukar cawaale qaadid waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu